maamulka SSC Qaatumo ayaa war ka soo saaray xiisada ka soo cusboonaatay magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag halkaas oo maalmihii soo dhaafay ay ka taagneed xiisad coladeed oo u dhaxaysa maamulada SSC Qaatumo iyo Somaliland madaxweyne ku-xigeenka maamulka SSC Qaatumo Dr. Maxamed Cabdi Shiin ayaa sheegay in magaalada Ceergaabo oo ka tirsan dhulka maamulka SSC Qaatumo uu ku soo duulay maamulka Somaliland isla markaana uu ku dhibaateeyay dadka shacabka ee ku dhaqan halkaasi waxa intaas hadalkiisa ku daray in maamulka SSC Qaatumo looga baahan yahay inuu midoobo sidii deegaanadiisa oo dib ugu soo ceshan lahaa isla markaana dadka ku dhaqan magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag ay si xorriyad ugu noolaan lahaayeen waa kan madaxweyne ku-xigeenka maamulka SSC Qaatumo Dr. Maxamed Cabdi Shiin oo arrimahaas sharaxaya waxa laga maarmaan inaan tilmaano qadiyada Ceergaabo waa qayb ka mid ah dhulka reer SSC Qaatumo waa lagu soo duulay shacabkeeduna waa laga barakiciyay guryahoodii iyo maalkoodii iyo naftoodina waa lagu xadgudbay waxaana ugu dambeysay dhacdadii ka dhacday aaga deegaanka Ceergaabo ee daanweyne ee dadka xoolo dhaqatada ahi inta lagu xadgudbay qaar la dilay qaar la dhaawacay qaar la qafaashay weliba iyadoo maalmo uun ay ka soo wareegtay in dad maxaabiisa ay SSC Qaatumo sii daysay runtii arrintaasi waa fariin cad inaan dadkaas goonigoostada ay nabadna u soconin wanaagna u soconin daris wanaagna u soconin dadka shacabka ka soo barakacay Ceergaabo waxaa khasaba inay ku noqdaan Ceergaabo sidoo kale waxaa khasaba inay calan ay leeyihiin oo Soomaaliyeed iyo mid SSC Qaatumo ay hoos harsadaan arrintaasi si ay ku suuroobi lahayd oo ay ku hirgeli lahayd waa mas'uuliyad wadareed inoo taala waxaa hormuud ka ah oo mas'uuliyadda gaar u leh maamulka SSC Qaatumo waxaana laga rabaa shacabka SSC Qaatumo meel kasta ay joogaan in loo diyaar garoobo sidii dadkaasi deegaankooda ugu noqon lahaayeen iyagoo sharaf leh oo karaamo leh oo calan ay raalli ka yihiinna hoos harsanaya ay ku joogi lahaayeen hadalkan ka soo baxay mas'uuliyiinta ka tirsan maamulka SSC Qaatumo ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyay duleedka magaalada uu ka taagnaa xiisada coladeed oo u dhaxaysa maamulada SSC Qaatumo iyo maamulka Somaliland iyagoo maamulka Somaliland ay kol hore warbaahinta u soo bandhigeen maxaabiis ay sheegeen ka qabteen dagaal ka dhacay meel u dhow magaalada Ceergaabo